hindisa sharciyeed macdanta iyo batroolka wasaaradda federaalka ee Soomaaliya ku saabsan oo muran badan uu ka dhashay ka gadaal markii ay soo baxday in hindisa sharciyeedkaasi wasaaradda sida la sheegay ee qoreen khubaro ajaanib ah taasi oo keentay in su'aalo ku saabsan in lagu kalsoonaan karo iyo in kale ay soo baxaan haddaba wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta iyo batroolka dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamuud Cabdulqaadir Hilaal ayaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho sharcigan iga waramay doodaha ka dhashay horta hindis sharciyeedkan waxa weeye ku yimid rabitaanka Soomaaliyeed markii hore sidaan u sheegnay waa hindis sharciyeed baarlamaan hore ay mariyeen oo la ansixiyay weeyo dib u eegis yar lagu sameeyay marka waa hindis sharciyeed ku yimid baahi iyo qoritaan ay Soomaali ay qortay weeye looyaro Soomaali ah ka qayb qaatay aqoon-yahano Soomaaliyeed baa ka qayb qaatay wasaaradana buddig u ahayd in dib u eegis lagu sameeyo walow ay jiraan dad kale la weydiiyey oo ka madax banaan Soomaalida laakiin aan ku lahayn door weyn oo hadda la dhigi karo waa wax muuqda waa gartay nin la yiraahdo Professor William Kosar ayaa waydan waxa dhex wareegay warbaahinta xiriirka bulshada in uu qoray sida uu sheeganayo asaga xataa hindisa sharciyeedka wasaaradda khayraadka iyo batroolka Soomaaliya isla markaasina hadda hor yaala baarlamaanka taasi oo aqoon-yahano fara badan ay sheegeen in xataa baarlamaanka ay ku diidan yihiin sababo la xiriira iyadoo aysan ahayn wax wasaaradda dad Soomaaliyeed ka yimid oo ay qoreen dad ajaanib ah marka eedahaas maxaad uga jawaabaysaan horta aqoon-yahanada Soomaaliyeed xaq u leeyihiin inay muujiyaan concerns ama cabashooyinkooda ay muujiyaan ay yiraahdaan waxaan aniga laftirkanaga waa aragnay wasaaradda ninka twitkiisa wuxuu ku soo qoray dad badan waa la weydiiyeen warka oo kooban oo si fiican aan u sheegay waxa weeye hindisa sharciyeedkan ninkan ma qorin